qiimaha iyo milgaha iyo sharafta badnayd ee Jajeele inay sidan u soo dhaweeyaan oo qaabilaan oo martiqaadkan iyo sooriyadan aan marnaba la ilaawi doono qalbigayga ka bixin ay u qabtaan. beesha Jajeele oo kamid ah beelaha Hawiye ayaa magaalada Muqdisho martiqaad ugu sameeyay ugaasada iyo salaadiinta beelaha Hawiye ee ka yimid dhulka dowladdeegaanka Soomaalida uuna hogaaminayay ugaas Sahal ugaas Carab ugaas Yuusuf isla markaana magaalada Muqdisho u yimid cali masaarkii ugaas Cabdirasaaq ugaas Cabdullaahi ugaas Xaashi Farcade wabar geedi wabar xasan wabar kutubo oo ah wabarka beesha Jajeele oo ku sugan qurac joome oo ka tirsan gobolka Bakool ayaa kulanka qada sharafta iyo casuumaadda maamuuska iyo martiqaadka go'aamiyay waxaana maalgelinta iyo sooriyada martiqaadka ugaasida iyo salaadiinta bixiyay senator xasan Iidow Maxamuud xasan Kubac nabadoonada dhaqanka ee beesha ayaana ka qayb galay casuumaadda iyo martiqaadka magaalada Muqdisho loogu sameeyay ugaasida iyo salaadiinta beelaha Hawiye ee ka yimid dhulka dowladdeegaanka Soomaalida isla markaana uu hogaaminayay ugaas Sahal ugaas Carab ugaas Yuusuf ugu horreyn kulanka qadada martiqaadka iyo casuumaadda ah ayaa waxaa ujeedadiisa faahfaahin ka bixiyey xaaji daa'uud macalin cabdi duushaan waxaa soo faray wabargeedi wabar xasan wabar kutubow oo yidhi hala dhigo wabarka amarkiisa lagu dhigay dadaalkii uu Sahal sameeyey oo Itoobiya uu ka sameeyey iyo dadaalka uu ka hadlayay ayuu noogu sheekay wabarka sidaas laaligeeda loo sameeyey ugaas hadii wax ka qaldanina laga raalahaado wixii ka qaldan gooshaan laga raalahaado goosha markuu wabarka soo amray senator xasan Kubac ayaa qarash ka bixiyay hadiidaha asaabiixi anigana asaan ka wakiil oo hadlaya mina qaar ka mid ah nabadoonada beesha Jajeele ayaa kulanka soo dhaweynta iyo martiqaadka ugaasada iyo salaadiinta ka yimid dhulka dowladdeegaanka Soomaalida iyaguna ka hadlay gaar ahaan waxaan u mahadcelinaynaa beelweynta Jajeele oo hogaaminaya Islow Cismaan Sheekh Xasan ee uu soo faray in gogoshaan la dhigo wabargeedi wabar xasan wabar kutubow eena ay ka ajiibeen senatorkeen iyo ragii la shaqeynayay gogoshan ayuu ay dhigeen isu yeerkana uu lahaa xaaji daawud iyo ragii la shaqeynay ragii ka soo qayb galay oo odayaalka nabadoonada ah iyo ragii nabadoonada la shaqeynay aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay walaalaheena ee dowladdeegaanka ka yimid oo horkacaya ugaas Sahal magacyadooda hal iyo laba ma wada gaari karno ugaas Sahal haddaan niraahno waa ku dhan yihiin walaalihiina gogol furan idin dhigay qalbi wanaagsan ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada maskax furan ku soo dhawaada waa waxaadna yeeli lahaydeen oo ladin yeeli waa waxaad kasbateen waxayna soo dhaweynayo walaalihiin beesha Jajeele ayaa ina soo dhaweynayso waxayna ku soo dhaweynaan kalkacal iyo walaalnimo iyo waxaad mudneedeen ayayna ku soo dhaweynayaan maadaama aad timaadeen xamar una timaadeen calimasaarkii ugaaskii beesha Murugsade markay garteen ayay waxay garteen inay goboshaas dhigaan oo ay la kulmaan walaalahood ka yimid Soomaali galbeed Ethiopia Clean 5 inay la kulmaan ayay go'aansadeen beesha go'aansadeen gobosha sida loo sheegay waxaa dhigay senatarka ayaa fidiyey bahdi iyo asigana waa isku raacsanaayeen waa isla ogaayeen ku soo dhawaada walaalihiin Ethiopia noogu yimid ugaas Sahal oo hogaaminayo na khayr badan oon ognahay wuxuu Soomaalida u haayo ama wuxuu dadka caa'ilada oo walaalaha u haayo aan ognahay waxaan leeyahay ugaas Sahal iyo tiimkiisa aad iyo aad baan inii soo dhaweynaynaa wayna mahadcelinaynaa mahad alla ka sokow mahad badan baan inii soo celinaynaa waxaan ognahay nin hareer mariyana habeena dhaxay hadal la weydiiyaa wuxuu maartay geysiday waan ognahay waxa safarkii reer Jajeele Ethiopia aadi wuxuu ka geysidaan ognahay gacantu ka geysidaan ognahay ugaas boqol goor waa ku mahadcelinaa adiga tiimkaada wayna mahadcelinaya aad iyo aad aan kugu mahadcelinaynaa goboshaan bifidlihi wamanihi wanaagii iyo sharaftii iyo karaamadii aad ku soo dhaweyseen odayaashii jigjiga oo u horeeyay wargeedii wabar xasan wabar kutubow wanaagiina iyo sharaftiina noo soo hoyday ayaan horta sidaasay ku timid ilaahana qadaray inaan arrintaas ayada iskugu nimaadno isku marxabayno isku aragno isku maaragtay waxaana fadligaa iska lahaa ugaas Cabdirasaaq ugaas Cabdullaahi ugaas Farcade ayaa sababteeda in la iskugu yimaado meeshaan la iskugu yimaado fadligeeda lahaa marka dhammaantiin waa mahadsantihiin jasaakumullahu khayran gogoshaan waxaa weeye isbarasho ee daaran tahay iyo hambalyo iyo soo dhaweyn wax kaloo leedahay male waa mahadsantihiin jasaakumullahu khayran dhankooda suldaan Cabdullaahi suldaan Maxamed ugaas Axmed ugaas Sheekh Mukhtaar ugaas Axmed ugaas Aadan ugaas Baade suldaan Cabdullaahi Geni iyo ugaas Sahal ugaas Carab ugaas Yuusuf oo hogaaminayay xubnaha dhaqanka ah ayaa ka mahadceliyey martiqaadka casuumaadda iyo hadiyadaha beesha Jajeele ay ugu samaysay magaalada Muqdisho waxaan ku idiin sheegayaa maanta waxaan la hadlaynaa waa Jajeele wey waan ku faraxsanahay weligay isma soo dhex taagin raggiinana oo kale oo magaca leh baahi cuntadan hadda ninkii baahan iyo ninkii saaka quraacday ma suugsiba anu tal baan u baahday idinku laakiin ma baahnidinba iska durdurinaysaan sida muxuu ahaa waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa waxaan iska ogaanaynaa
walaalnimo midnimo isxusuus aynaan kala gamin maxabo iyo isa soo dhoweyn saasaan wax ku noqonaynaa. waxaan halkan ka salaamayaa dhaqanka beesha ballaaran ee walaalahan Jajeele ee deegaankoodu uu yahay deegaanku waa Soomaaliya iyo kililka shanaad oo Itoobiya ah iyo ismaamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. marka waxaad garan kartaan khariirada inta leeg ay reerkani degan yihiin inay yihiin bulsho ballaaran oo ballaaran. Itoobiya degaan, Koonfur Galbeed bay xildhibaanna ku leeyihiin ay degaan, Hirshabeelle degaan ay xuduntoodii tahay ay degan yihiin, xamarna waatan way joogaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. marka ciddii aan garanaynin inay beel ballaaran tahay ayaan intaas ku daraya. waad mahadsantihiin, allah idin sharfo. annagana waxaan salaan idinka wadnaa dadkii aan ka nimid ee ka dambeeyey naga dambeeyey inaanu wixii qaraabada ahee dhulkan jooga salaan soo gaadhsiino. hadday dhaqan naga maqan oo xaggaas aan soo tegin oo nasiibkooda inay halkan yimaadaan ay u suurageli weyda ay yihiin, iyo hadday bulshada inteeda kale yihiinba salaan baan idinka sidnaa. markaan xalay u sheegnay inay beesha Jajeele marti sharaf qada sharaf ay noo samaysay, waxay dhaheen hana lagu salaamo dhammaan meel kasta oo ay joogaan. dadkii aan ka nimid way soo salaamayeen. salaamullaahi calaykum. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. reerka haddee waan aqaana aniga beledweyne waan ugu tegey. wabarkana waxaan garan hadda aniga wabargeed ma arkin aabii xitaa waan garan, wabar xasan wabar kutubow. marka wixii hadda ragga meesha joogayna haddee reer muqdishona waan ahaa rag badan baan ka garanayaa. nabadoonkii sheekh cabdiraxmaan soo maha reer fiqi soo maha ninkan isagana waan aqaanaa. nabadoonkana beledweyne aan tagnay. aad baan ugu faraxsannahay araggiina. beesha aad maaragtay kasoo jeedaanna waan u mahad celinaynaa. sharaf waxaa noo ah reerkii u horreeyey ee naqaabile ee hawiye inaad tihiin waa Jajeele, iyadana waan u mahad celinaynaa. insha allahu taasina farxad bay noo tahay. inta aad dheertiin wey hawiye oo reer Etoobiyana waan isla nahay, Soomaalina waa tihiin oo maaragtay labadii qayboodba idinku waad u qaybsantihiin oo waa qaybta Etoobiya waa qaybta saan dhihi karo. waxa aad nooga maaragtay aad hawiyaha kale nooga xigsateen waa intii Etoobiyanimada isla ahayn weeye. ugaaska aad buu u mahadsan yahay, maxaa yeelay ma saaxanin. aniga waan ogaay, waan la socday. ma saaxanin, ma hergelin, ma hoyanin. xitaa markii inta ay u baahnaayeen lasoo wada maray inaad dhaqaalo u raadiye oo dhaqaalo lagu soo amabixiyo la raadiyo haddana sii galay ayagoo dacooynaa ay haddii aleera soo baxeen tolkeen. intaa idinka farxdeen annagana waa idinla farxnay, jif ahaan annagoo idin xigno. intaad idinka mahadnaqdeenna waa mahadnaqnay. laakiin waxaa aad iyo aad wanaag u ah inaadan hilmaaminoo maanta ilaahayna keenay kayfiya aan ku imaaday aan ku imaadne ugaas cabdullaahi ugaas dibiis aan ku imaadne inaad haddii aleera adinkoo haddii waxba aan kala harsanayn jifooyinka u idin wabarkeennina uu soo faray senatarkii iyo siyaasiyiintina ay diyaar yihiin inaad gogol hawiyihii oo dhan haddana u dhigteen. aad iyo aad u mahadsantihiin. waftigii dowlad deegaanka Soomaalida ka socday beesha hawiye ee golaha dhaqanka ee hogaaminayo beesha walaalahay ee qiimaha iyo milgaha iyo sharafta badnayd ee Jajeele inay sidan u soo dhaweeyaan oo qaabilaan oo martiqaadkan iyo sooriyadan aan marnaba la ilaawi doono qalbigayga ka bixin ay u qabtaan. intaas kadib mahadda ballaaran waxaan ku xijisiinayaa oo ilaaway mahadda Ilaahay annagoo nabada idinkoo nabada halkan isugu kaaya keenay. waxaan aad ugu faraxsanaan lahaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad inaan maanta halkan ku kulanno wabargeedi, wabar xasan, wabar kutubow iyo waftigii uu hogaaminayay in jigjiga ku kulannay oo nabadoon sheekh cabdiraxmaan uu nagala joogo maanta oy ka maqnaayeen xubnihii kale habarwaa iyo ninkaan u bixiye seerjiite aan u bixiyey iyo raggii ragga ahaa. ugu dambayntii gogasha casuumaadda martiqaadka beesha Jajeele u fidisay ugaasada iyo salaadiinta beelaha hawiye ee ka yimid dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ka hadlay Islow Cismaan Sheekh Xasan. xafladda halkan lagu qabtay ee loo qabtay walaalaheen sharafta badan oo uu hogaaminayo ugaas sahal. walaalayaal soo dhawaada. waxday wax loo cadeen way tolkiina waaye wax toosana tolkiina waaye wixii soo gaar ku raali ahaada gacanta yar soo gaartay ku raali ahaada ka badan baad mudan tihiin waa ehelkiina u timaadeen aan marnaba la ilaawi doono qalbigayga ka bixin ay u qabtaan.